halkan waa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho oo xilli habeen shaqaynaya caawa markii ugu horeysay muddo 27 sano kadib ah sidaad arkaysaan daawadayaal diyaaradda Zuma Airways ayaa caawa soo caga dhigatay saacadu markii ay ahayd 8:10 daqiiqo diyaaradda waxaa saaran 200 oo qof oo 7 ka mid ah shaqaalaha yihiin 193 qofna ay yihiin rakaab diyaaraddu waxay ka timid magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia dhammaan dadka saaranna waa dad hijay ah daawadayaal waxaa garoonka diyaaradda dadka ku soo dhaweeyay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada iyo mas'uuliyiin kale oo dawladda ka tirsan iyo agaasimaha hay'adda socdaalka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka rakaabka oo dhan ayaa halkan jooga garoonka amnigiisa waa uu wanaagsan yahay shaqaalaha oo dhan garoonka way ku wada sugan yihiin si caadi ayuu garoonka u shaqaynayaa xilli habeen ah arrintan ayaa waxa ay tahay guul weyn oo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed maadaama garoonka xilli habeen uu shaqaynayo iminka waxaan la tahay qof kamid ah dadkii rakaabka ah ee Sacuudi ka yimid ku soo dhawo TV-ga qaranka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم aniga oo xaaji maxamed maxamuud sanay ahna generaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan caawinta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay rakaabkii ugu horeeyay ee habeen madow ka soo degay 35 sano ka hor garoonka aadan cadde international airport aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaana rajaynaynaa annagoo taagan banka Carafaad ayaan u duceynay ummadda Soomaaliyeed qalbigooda in Ilaahay uu soo dumo in dawladdeena Ilaahay uu qawiyeeyo in dawladnimadii oo Soomaaliya kala dambeyntii ay soo noqoto oo awaamirtii iyo kala dambeyntii waanu ku faraxsanahay boqolkiiba Ilaahay idinkiis waxaana rajaynaynaa Soomaaliya inay horukac iyo bashbash iyo barwaaqo ay gaarto wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaana la taagan ee wasiir ku soo dhawo TV-ga qaranka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay caawa habeen taariikhi ah waa habeenkii ugu horeeyay dhowr iyo 20 sano la soo dhaafay diyaarad rakaab wada ee halka ka soo degto 200 oo shakhsi ayaa diyaaraddaasi saarneed sidaad arkaysa ayaga naftooda aad ay u faraxsan yihiin annagana waa faraxsanahay waxa mahad ilaah ka sokow amniga immigrationka dhammaan inta ka howlgalaysa airportka ayaan u mahad celinaynaa iyo dawladda noo suuragelisay inaan arrintan fulino ayaan aad ugu mahad celinaynaa ilaah ka sokow waaya wasiir bal dadka waxaad sharaxaad ka siisaa sawir ka siisaa garoonka xilligan habeenka ah ciidanka amniga iyo shaqaalaha ay sida u shaqaynayaan shaqaalihii oo dhan loogu talagalay inay dadka u khadimaan shaqada u qabtaan sida immigrationka caafimaadka nabadgelyada dhammaantood waa diyaar qoladii firefighters qoladii dabdamiska kuba mariinka badda dhammaan wixii oo dhan waa diyaar amisom iyagana sidoo kale waa inoo diyaar immigrationka oo isagana muhiim ah booliiska nabad sugidda dhammaan waa diyaar shaqaalaha airportka ka shaqeeya caadiga ayagana mar hore ayaa diyaar ahaayeen waxaan naga dhimanaa kaliya wixii sidii isugu keeni lahaa caawina sida arkaysiin sin wanaagsan ayay inoogu dhacday wasiir caawa kadib waa shaqeynaya Soomaaliya garoonka xilli habeen diyaarad garoonku wuxuu shaqeynayay muddo habeenkii ugu furnaa aan tijaabinaynay diyaaraduhu ka soo degayeen mar kastana way ka soo degaan hataa marna waxaa jirtay diyaarado meel ay ku degaan waayay inay halkan ku soo degaan si emergency ah marka caawa waxay noqonaysaa habeenkii officially loo furay si official ah loo furay oo dhammaan markii hore ayagoo fasaxaystay haddana ay arkaan diyaaradihii waaweynaa inay ka soo degayaan marka aad ayuu noo furan yahay caawa iyo wixii ka dambeeya waxaana la jooga agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda gaashaan la sare Maxamed Aadan Jimcaale koob mudan ku soo dhawaada TV waa maanta dhaw Ahmed bal waxaad ka warantaa caawa diyaaraddan markii ugu horeysay xilli habeen ah garoonka ka soo degtay iyo dareenkaaga sidoo yahay والله وهبين هذا ونحسن هذه هذا نقول أحسن هاي إن أيربورت باللابي هبين كي إن أي فلايت شو دجان كانت دولان وواحد بدل الأسبوع هذا فوقنا يقدم بس أيربورت كان وحن ولبا عاوز هذا وين فلايت كوبا إيرويز أو في السعودية أو ذا بقول السجاشة ركابة وواحد هذا فرحان وواحد هذا هبين يمالك بين عشرين لو أديكو سراكيش يونا وديار هذه هذا هو ما علمنا وسارة جديد في عرق يروك وهذه وصل شيء وجوي ديار شيء وأربعة ديار شيء نحن وحن ديارنا واجد يعني رمضان وأنا واحد سومالي دورنا هي كنت هذه هذا سومالي دورنا دوين دون أنا جارهانا
culays badan ayaa maalinkii saaran airportka tan waxay u noqonaysaa airportka iyo saraakiisha ka shaqeysa socdaalka iyo kuwa kale ee airport authority-ga culays badan oo ka diga ayay noqonaysaa sababtu waxay tahay flights-ka ka diga maalinkii aad iyo aad uga badan yihiin capacity airportka marka habeenkii in la helo oo shaqada habeenkii airportka bilaabo wax weyn ayay soo kordhinaysaa waxay yareynaysaa saxmadii culayskii waxay aad u qaaminaysaa baakinka diyaaradaha gaar ahaan inaga saraakiisheena socdaalka culayskii badnaa oo rakaabkii badnaa oo maalinkii culayskii howlihii jiray oo dhan ayaa kala yaraan doonaa alxamdulilah ilaah mahad iskale caawa waxaan taagannahay airportka aadan cadde international airport hadda saacaddu waa xilliga geeska afrika soomaaliya waa 2 saac iyo bar waxaan u taagannahay waxa weeyaan diyaarad jubba ay leedahay oo airbus ah oo keentay xujeey ka kooban 193 ayaa haddana soo gaartay oo magaalada muqdisho hadda soo degtay diyaaraddaas oo waqtiga loogu talagalay ku timid si loogu talagalay ku soo degtay si nabada alxamdulilah ilaah aanu mahad celinaynaa بعدين وحاول عيد الله لعيد كشغل يوم هذا إن شاء الله. أرنتن وزارة محي وقديم. أرنتن وزارة الدولة الصومالية أردن الشعب الصومالي يجود أهم صومالي أردن وحوريجن تقول وحشغلنا يا إيربورت كي هذا عدى إنترناشونال إيربورت سيدي هرب الله قبل لماي أو أمريكا رئيس الوزراء يمدحونا هاي إن إيربورت هذين فريا وعدينا يسا أمريكا الدنيا إنترناشونال يا لوكال وحنو عدينا إنه إيربورت فريا هاي هذين إكسودي كران وقت يربان يا رضا. First of all, I am very glad to meet you here in the night time. It's a big event. It's event very huge one and very important for Somalia, yeah? Because now you're more open. Now you're really international airport. Not only operation from sunrise to sunset, yeah? Now you're more open for the world, and to be honest, I'm happy because I'm not expected so good operation in the night time. Edge lights very good, very bright. Of course, it will be better in the future to have at least VOR or maybe ILS, but at least now it's acceptable. It's acceptable for normal operation. Yeah. My congratulations for all Somalians. عاوة وهابينكي نوجو الرئيسي 7 سنة أي هابين ديورت إن تشت أوين أو باسنجر ودا يسود دكتور فلله الحمد سيد نبض أي ديورت كسود دكتي بايلوت كعيان وحي الرو أو رئيسي الله يا شيء مركو سود دكتي سي أنا هو بينو قلب كي أن ركبني أو رنوي جينا يسيدي لوجو تلاقلو شغينيان بايلوت كور فرحات لو يسيي وحويش شيء مركي كوات oo dul maray markii hore uu dul maray oo dhinaca badda ayuu ku deegashada ku soo sameeyay markuu dusheena maray airportka dushiisa marayay 5,000 feet ayuu dhulka ka sareeyay wuxuu ii sheegay markaas inuu arkayay nalalka runway-ga markuu soo jiiray uu soo deganayay wuxuu ii sheegay asagoo 7 kilomitir noo jira inuu arkayay nalalka loo yaqaan bubble lights oo diyuuradu ku degtaan iyo runway lights labada uu arkayay 7 kilomitir asagoo soo jira distance dhulkana uu jiro 5,000 feet marka waa calaamad guud ah operationkii waa ku guuleysanay qalabkii aan rakibnay oo loogu talagalay diyuuradu inay habeenkii isticmaalaan sidii loogu talagalay oo standardka ay u shaqeynayaan marka diyuuradaha kale iyo airlines kale dhammaantood waxay noo tahay farxad in pilotkii noogu horreeyay caawa noo soo degtay diyuuradaha kalena ay ku dayan doonaan hadduu ilaa yiraahdo magacaygu waa Axmed Maxamuud waaye duuliyaha diyaaraddan hadirtan Juba Airways oo maanta caawa ugu horeysa Muqdisho soo degday waanu ku faraxsanahay horta hore in wadankii ayaan sanado badan in diyaarad ka soo degi karin oo caawa ugu horeysa aan soo laabanay oo equipment fiican oo dawladda Soomaaliya hagaajisay aad ugu faraxsanahay qalab fiican runway lights noo rakibay ilaa iyo 5000 feet ka soo aragnay ilaa 7 kilomitir wax lagu qiyaaso waan ku faraxsanahay dawladda Soomaaliya oo ku mahadcelinayna qalabyo kale oo casri ah iyo adduunka ka jirna insha Allah warajeynayna insha Allah in loo kordhiyo Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh diyaaradda Captain Idris hadda waxaan bedelayaa qoladii diyaaradda keeneen caawan bixina insha Allah first flight marka sida runtii aad baan ugu baxsanahay dawladda federaalka Soomaaliya government-ka shaqo fiican bay qabteen
waayo airportkan sanado badan lagama duulin haweenkii wala lagama kicin marka caawa waa history waa Juba Juba Airways marka they have to wait to fly aad baan ku faraxsanahay waxaan u mahad celinaynaa dawladda federal government Soomaaliya ilaahay khayr ha u ziyaadiyo insha Allah sifa waxyaalaha kale ka dhiman qalabyaha oo latest technology-ga ay nagu kordhiyaan aad baan masantiin waana masantiin hadiyad Hakiima Xasan Aleeyra waxaa ilaahay ku mahadsan oo iyadoo habeena Muqdisho naga soo dejiyay xadaan ka imaanay jiddan waxaan ka imaanay xaramka ilaahay aana soo aruuriyay ilaahay xaram jid makeena garoonka inaan ku nabada habeenkii 2 saac alxamdulillah saa ku faraxsanahay dareenkaaga caawaasna waa ku faraxsanahay aad u faraxsanahay alxamdulillah ilaahay ma hadda iskale oo diyaarad habeen madow ay ka soo degto garoonka waxaan ka cimid beydka ilaahay waxaan ku faraxsanahay cawada anoo airport ku soo dego ilaahay habeenka 3 saac